madaxweyne aadaan u ilaalinaa sababtuna wax kale ma aha dad koobanaana iswada yaqaana ilmaha xasan sheekh adeeradooda wadanahay familada iswada yaqaana waxa doonta ma dhihi kartid marka waxa ku khasbantaa inaad gaabsato laakiin bahasha hadii la iska wado oo la iska wado baraka ma leeyahay tagaysa ya waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah iyadoo shabaab ay noo joogaan basro iyo ka soko 2,000 waxa loo diray mas 1,500 waxa loo diray Ras Kamboni waa nin ay ku filan tahay telefoon ku xalin karna Axmed Wali ogaada telefoon waxa la isku haystaa doorasha aan sameysana iyo ma sameysanaysid aqligeena meesha uu joogo halkaas waa maanta intaas waxa loo marayaa warkayga hal yeelo warkaaga waxa ka weyn dastuurka ka weyn warkaaga waxa ka weyn midnimada ummadda marka sheekada waxa la keenay la yiraahdo aan is-eedo war gurigaaga ma ka shaqeynaynaga seeda noo leedahay ya aan is-eedo islaantu ba ka yeelimayso islaanta adiga aad qabto iyo ilmaha aad dhashay aan is-eedo ka ma yeelayso ya iidaaya talada aniga aan is-eedo ya waxaan rabaa marka maxay uga duwan tahay marxaladda marka marxaladihii kale waxay uga duwan tahay arrinta argagixisada ma aqbali karto khilaaf siyaasadeed waa la socotiin hadda mararka qaar marka qofka madaxda ee Soomaaliga intuu dhumo ay gaarto in ajnabigu la hadlo wada bal u kaadi markaas horta yaabaysa macnaha dalkan wuxuu khatar ugu jiraa argagixisada in faraha looga qaado sababtuna in misaal lagu soo bixinayo lacag fara badan in ciidamada la dhiso markii hubka ugu badnaay iyo ciidanka ugu badnaay lahaay hadda ahayd waa la soo burburiyay ciidankii hubkii inta ugu badnayd waa la qaatay argagixisadana waa soo daba kacday waxa laga leeyahay wareer inta siyaasadda iska xalisid dagaalka aad annaga waxaan diyaar u nahay dagaalkeena qayb ka qaadano maalin walba waxa lagu leeyahay meel hebla ma waxa uga qabaweys oo dhan wasiir gaashaan dhigaan ahay mataliya ciidan aan ahay aniga tala lagu imaa karaa ma garatay inta lagu bixiyo dadaal ciidamada qabaa'ilka hadii lagu bixinayo ciidamada qalabka sida in dib loo dhiso maanta meesha la joogo lama joogin ciidan aan dalacaad u sinayn oo hubka u sinayn ma dagaalami karaan ciidanku waa sensitive hadda ka hor ayaa waxaan tagnay dawlad saaxiib la dawladaha Soomaalida dawladda Soomaalida marka waxay nooga sheekeeyeen ciidanka marka ay dhisayaan say u dhisaan qabaa'ilna ma aha naga fiican yihiin annaga waxay nagu yarahay 11 qof 9 qof oo hal gobol ka timid lama ogolaado sector dhan ayaa waxay u fadhiyaa unugtaanu muwaafaqsan tahay sharciga ciidanka lagu dhisay annaga hadda saasmiya ma aha waxaan rabnaa inaan ka gudubno ciidanka la isku dhafo nin la arkaba darajada uu mudan yahay la siiyo qof la arkaba hubka ku dagaalami kara la siiyaan rabnaa ma jirto hadda askariguna sidiisaba hadduu aamino hubka inuu ku haysto wax khaldan ma la sixi karo amarkana ma qaadanayo saraakiisha waaweyneed ee ciidamada joogaan wiilal yaryar loo dhiibay see ku imaan kartaa marka guul ma imaan karto in la khaldamo waa wax ka dhaca bani aadamka laakiin in la soo laabtaa muhiima waxaan rabnaa inaan u caqli celino madaxda dawladda dastuurka dhexda iska soo dhiga doorashada dhexda iska soo dhiga ummadda Soomaaliyeed go'aan ka wada gaarto doorashadii suurtagal ah oo doorasho fiican ah ee la qaadanayna magaalada Muqdisho nidaamkeeda in la soo doortaan rabnaa laakiin waxay u baahan tahay dhulka inay soo dhigtiin in laga wada hadlo horta maqaamkeeda laga hadlo guddi gaar ah in loo sameeyo oo guddiga magaalada Muqdisho la yiraahdo caasimada ayaa la rabaa conflict cusub hadda inaan sii abuurno ma rabno qodobka ugu dambeeya waxaan rabaa inaan la hadlo dadka reer Muqdisho maalin la arkaba waxaa loo sameeyaa colaad aysan shaqo ku lahayn waxaana sameeya madaxda timaada meeshan go'aanka laga gaarayo magaalada Muqdisho ee saameynta ku yeelanaya si negative gobolada kale
wuxuu colaad u abuurayaa magaalada muqdisho iyo dadka degan wuxuu kala fogeynayaa ummadda Soomaaliyeed wuxuuna ka soo horjeedaa arrimaha midnimada dadka reer muqdisho marka in lagu marin habaabiyo doorasho la idin sameeyna xaqiina la idin diidan yahay arrin sax ma ah waxa laga shaqeynaa madaxda dawladda ay ka shaqeynayso waa inay kala furaan magaalada muqdisho iyo magaaladaha kale maxaa keenay in cunaqabateyn la saaro diyaaradaha aadaya Jubbaland maxaa laga faa'iidayaa maxay soo kordhinayaan bal ii sheega waxay soo kordhinayaan islaanta xanuunsan wiilka xanuunsan inuu yiraahdo muqdisho laga haystaa arrintaas arrin fiican ma Axmed Madoobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh haday isku hayaan siyaasadda waa gaar laakiin arrimaha bani aadamnimada inay soo galaan ma inaan ka weynana waa arrintaas shalay farmaajo waxyaabaha lagu haysto waxa kamid ah isla arrintan ani Xasan Sheekh u tagnaa kala hadalna inuu asaga sameeyo maxay keenay marka aad iyo aad aan ugu xunnahay waa cudur daaranaynaa yani cid kasta oo lagu dhibaateeyay go'aan khaldan oo ka soo baxay magaalada muqdisho waa cudur daaranaynaa waxaan sidaas oo kale u cudur daaranaynaa haddaan ragnahay gabdhaha ama haweenka Soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyay meesha ay deganaayeen iyagoo aan ognahay inay u taagnaayeen qarannimada ayagana waa cudur daaranaynaa waxaan u cudur daaranaynaa dadka lagu dulmiyay dawladnimada ayagana waa cudur daaranaynaa magaaladaas muqdisho inaan khayr laga soo wadin waxa ku ogaanaysaa nimankii banaadirga ahay deganaay soo dhibaato kuma dhicin hal maalin inta la fadhiista raalli ahaada ma la yiri see doorasho looga qabanaa marka